السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمضي داوديال دمانتين بوا مركلة يايانو إذن لسوا دوادا maanta waxaan rabaa inaan ku bilaabo tacsi aan u dirayo qoyska ay ka baxday gabadha Nafiisa Cumar ee yar. Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin ha u naxariisto ciddii dembiga ka gashay ee kolley kufsi baa ku hoos duugane waa isnaqaanaa Soomaali Maxamedey kolleyba inantaa yar waa la kufsaday sabab kale looma dilin. Ilaahay subxaanahu wa tacaala jalla wa ala yaa isagaa kashifa oo laabaha bini aadamka oge. إلهي سبحانه وتعالى ظالمين تحصو صاروا سومالد هالكا يكو سوحتو حوي وفقتها 10 سنة أما 20 سنة قدام به كما قبوني واكا قريونا يهادي سي سوحتو سومالي حالة يهد كجرتو وحا أن عدنا لغوي ديني وح يا oo idinkuna hubtaan aniguna aan hubaa in lagu sameyn doono in lagu wareejin doono silig cas lagu wareejin doono Soomaaliya adduunka la iskaga laga xidid yani meel walba inta laga xidid loodan doono maaragtay dacad ama mushaha loo dhiibo ama labadan dale harraha ka xiga loo qaybiyo ama cid kale meel kale ka timaha qabsatay ummadankan dacad nimcadana ka faa'iideysato wax xayawaankan beerta xayawaanaadka meesha xayawaankan cid talisa loo raadi taatan sanka ka baxaya maanta waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo sheekadii maanta igu dhacday aan idin soo qoray. نفها آدمه وكان نشوفه كعسيس يا dadka qofka bini aadamka naftiisa laga ilaaliya inuu tiisa wax u geysto iska daa inuu bini aadan oo kala dhibe cadada ku jirta inuu dhibaato u geysta laga ilaaliya. aniga saaka maanta waxay igu dhacday halkan aan ka baxay iskuul baan u socday waxaan qorayay imtixaan xisaaba baan maanta galay waxaan qaybiyay shalay oo dhan imtixaan baan qaybiyay markaas halkan aan ka baxay tareenka bas baa halkan iga qaado markaan waxaan deganay meel miyiga yaa anigu waxaan deganahay meel miyiga aan deganahay waxaan ka raacaa subaxii baska wuxuu igeeyaa meel laga raaco tareenka halkaa laga raaco meel tuula iyaduna yaa marka Friedland baa dhaw halka inta badan qoxontigu iska soo dhiibo oo meesha la interviewga dadka laga qaado halkaasaan maanta halkaasaan baski soo qaaday bartan iga qaaday tuulada 20 daqiiqaan marka hore markaa u lugeeya 20 daqiiqaan baskan 20 daqiiqo u lugeeyay baa soo habsaamay oo wuxuu soo habsaamay 8 daqiiqo meesha 7 daqiiqo xasaas marka waxaan kaga wareegaa tareenkuna wuxuu soo maraa xilli cayiman oo 7:30 ama 6:30 buu maraa saacadiiba todobadii 6:30 saasoo kale marka todobadii baan ka raacay baska 7:20 bay hadin yimaado 7:00 wuxuu yimi 7:20 meelahaas dadana nasiib xumo waxay dhaafay tareenkii meesha taagan baan arkay baskoon soo dhaweyntan ka degay baan orday 3 minute baan ordayay markaan gaadhina albaabkiisii sida u taabo oo furbu iga dhaqaaqay markaan soo noqdayna tareenkii baskii aan ka degayna sida raacna way diido meeshii la istaagay maaha basaskeeni meel walba istaagay qofku wadanaysa walaal wii joogay ku qaaday mogta meel cayiman buu leeyahay meeshii ka soo dhaqaaqay marka inta madaxa saa igu yiri dhaaf halka marka aan taagnaa tareenku saacadiiba marba maraa soo istaaga oo marka kii aan raaci lahaa kan dhaqaaqay saacad kadib uu mid kale soo mari karaa taxana waan galay imtixaankana wuxuu baa la ogol yahay inaad ka maqnaato waa hadaad warqad dhakhtar sidato oo saacada imtixaanka la galaya dhakhtar la joogtay oo dhakhtarkaas cadeeyo warqad soo qoro si kale ugama baaqan kartid deetan waa xanaaqay anigoo qaracan oo ka xanaaqay darawalkaas intuu marka hore 8 minute soo habsaamay tareenkii dhaafiyay haddana i qaadi waayay in walaw xaq lahaa oo saxna inta badan dad wanaagsan baa iska jira darawalada oo ajaaniba way inta istaaga way qaadaan albaabka hore iga furaano marka yarkaan basku tareenku inuu dhaqaaqo way qaadaan markaan arkay markuu aan iskuulkan inta waxa la igu yiri soo cadee ayaan qaracmay dhakhtar u tago warqad dhakhtar noo keenay dad buka hadii kalena waa khasab inaad imtixaanka joogto baan mobilkaygan iyo buug aan sitay iyo warqadaan sitay baan dhulka ku dhuftay meeshii tareenka laga raacay meeshu waa cidla meelaha tuulooyinka ah ee waxa isku dhaafay inta badan laba wado gawaaridu marto
iyo wadada tareenku maro wadada tareenku maro markuu tareenku soo marayo marka labada hareerood biraa laga dhigaa stop bay leedahay yaa stoptaas nin baa dhisme meesha ku dhinac yaala baa xagga sare waxa saaran nin sida jeelashoo kale fikta u sareysa uu ninka gaadhka u fuulo baa halkaa waxa saaran nin askari oo ilaaliya dad adugu security oo ilaaliya meesha oo iyaga birahan bottonka casshida markuu tareenku soo socdo soo gawaadhida iyo dadka ka joojiya marka ninkaas ayaa intuu meesha iga arkay anigu xanaaqsan kolba dhinac u soconayo warqadihii bugaagtan dhulka ku daadiyay moobilkayna dhulka ku dhuftay sorry meesha tareena ma soo maraya mogtay dadkuna wuxuun bay soo istaagaan meesha 10 daqiiqo tareenka ka hor ama 5 daqiiqo ka hor tareenka 8 daqiiqo 10 daqiiqo wax ka badan dadku isma soo taagaan ayuu shakiyay deetana wuxuu taar kula hadlay tareenadii wadada maray ECE ga tareenka dheereeya iyo tareenadii kale wadada maray buu la hadlo wuxuu ku gabadhan ka shakiyay ayaa meesha galaaska tareenka laga raaco fadhida marka ayar socda markii hore ana waligayba arag ayar soconay ECE ayar soconay ayaa soo agmaray kootinaya kooti bay ku dhaafay ilaahay yaa bixay kolkan ma istaagay magaalooyinka waaweyn u istaagay san wuxuu la kootinay anoo saa u kala looba oo bugaagteedii iyo waraqahaygii moobilkaygina dhulka yaalo waxa soo maray meeshii tareen isaguna xaggan u socda oo yar soconaya oo istaagay masaan sala kana istaagaye namala waa tareen cusub raac warbaqdii bugaagtii aan urursado oo waan istaagay hoostan ka gaayo meel ku dhawaaday shaw ninka ku soo yiri oo warbu qabaayo intuu daaqadii iska furay buu yiri nish hiya hinsetsan halkan la fariisanin markaasaan xanaaqay markaan arkay inaanu u socon magaaladan u socday ama aanu istaagayna oo hadalan u furay daaqada ayaan koodhi das geht's doch nichts an sie haben sie Angst dass ich sie umbringe ja waxaad ka cabsanaysaa inaan ku dilo baan ku yiri adiga waxba kama gelin meeshaan fadhiisanaya soco aan ku xanaaqay deetana maxaa tiri ku dilo maaskna markaa waan xidhnaa luuqada jarmalkuna waa yara adag too shasha badan baa ku jirto maxaa tiri igu yiri ku celi waxaan ku yiri waxba kama gelin erzähl doch nicht Scheiß ka sheekeen ma soco na dhaaf waa adigu hush baan ku yiri sidii waxda Soomaaliya ku hadlayo kala hush deetan waan iska bugaagteedii waxa ay intaan qaatay baan iska dhaqaaq hushtiga kaga tagay sida uu fahmayo Soomaaliya shawinta booliska wacay ayuu wuxuu ku yiri inaan dhalinyaro ah oo aan ka baqayo inay istisho ayaa meesha tareenka fadhiday iminkana way iga carartay markaan sidii booliska waca marka waxaan ka baqayaa inay istisho tareenka isu dhigto taar bay ku wada hadleeno boolisku aniguna intaan iska tagay baan marka hore waan cadaysnaa cimilada aad u fiicnid waan iska lugay tuulo leeyahay qoosashni ayaan u socday ayaan basis ka raadso oo iska lugay 2 kilomitir iyo bad waxaan dhex maray dhirta kaymaha meelaha dadku lugeeyaan baan iska maray wadada baabuurta inta ka leexday baan iska tagay asaguna waa kan siri waa kan askartina waa ku raadiyay waa 5 ama 6 gaari oo baabuurta federaalka booliska bay soo direen iyo diyaarad tareenadiina waxa tareen waliba halku taagnaa jidka dhex u dhaxeeyay magaaladan soo ku socday iyo taan deganahay ayay joojiyeen ilaa inta aniga laga helay tareenadu way taagnaan ana waan yaabana markaan wadada kale dhinac martaa markaan ka fogaado tareenkii wali halkii taaganaa ninka camal aanta ay saabadna haddana xanaamala waa dhismihii qoladan ice loo dhisay jidkan ECE loo dhisay ma dara xaal gabadh bay iga hortimi gabadhii baan iskala sheekaystay gabadhii baan ku ori waxaan rabaa meel baska laga raaco say i tilmaantay waxaan ku waxaan rabaa meel mask laga iibsado kiafka iga soo lumay way tilmaantay halkaasaan iska maray meeshaydii baan tegay waxaan iibsaday meeshaan tegay aan u socday sidaa markaan u fadhiistay ayma waxay soo agtaagay 3 gaari oo booliis ah noo yar banay waa ku yiri arday kala meesha markaa taagnid bas sugaysay iyaguna ka kala fogaada waa ku yiri ma haysataa Ausweis ma haysataa personal ID ma haysataa card gida san ku deganaansha san ku haa laakiin waxaan baan ku dhibay markaan ogaado sababta aad u rabto dadkuna way la joogayaan waxaad u diraysaa dadka
waxaan ku rabnaa inaan adiga kula hadalo ilama hadlaysid baan kuuri ana kula hadlin booliska waxaan wacayaa anfa maxaa la yidhahdaa lawyerkaygan wacaya lawyerkayga kula hadlay malaana dadka inta badan booliska lalama hadlo oo waxaa jira cunsuriyiin badan baa jirta oo dad badan wax qof lama amradeeyo qof qalad been laga sheego wax badan oo dadka midowga iyo xijaabka iyo waxaasay kugu eeganayaan waxaan kula hadli maaye hadday mashaakil jiro lawyerkaygan la hadlaya lawyerka la hadal markaasuu yiri maya wax weyn ma jirin rabnaa inaan kuu sharaxno soo maad joogin saaka Friedland ma tegin meesha laga raaca tareenka haa baan ku minkan ka imid diyaaradahan ay ku raadinayaan anaguna saako dhamaan ku raadinaynay 5 gaari oo kale ayaa jidka ku jiro adiga ku deedeey sanko ilaahay yaabe ka naadhay qoladii wax sameyn jirta lagu soo wanjaa bismillaahir rahmaanir rahiim mida kale hareerahayga kastaagano taarbiga wada hadlayaan waanu haynaa waatan halkan ay joogta anigoo argagaxay ayaan koodhi ii sheegay waxa dhacay laakiin yiri tareenka wadada tareenka laga raaco saaka wixii ka dhacay ii sharaxadu ii sheeg iigu celi deewaaniga sheeg qoori deena waan xanaaqsanaa baskay wacay wada sheekadii waan uga sheekay nin tareen wata ila hadlay kiina waan caayban ku dhilaana waan xanaaqsanaa marka waxay cabaar sagaalkii iyo marka yimaadeen iyagu booliisku waxaan ku uri saaka 6 barkii laga soo bilaabo ilaa hadda waxaan isku dayay in iskuulkii gaadho mana gaari karaan ku waxaasna wajid waa baabuurta ferbennumka ama xiriir ama gaadiidka oo xun taana waan galay markaas waxa ku dhahay wada raaxisa waxaan awood maaragtay khalad faham baa dhacay ninkaas ku khalad fahmay inaan ku badbaadinaa rabnay waan raacaysa waxaad mar labaad sheegaysaa sharaxaysa sida imkaan noogu sharaxday madaxda noogu sharaxaysa waxaan sameynaynaa iskuulkana anaga u qorina warqad inaad taxaanka gashaa inaad anaga nala joogto waxaan sheekada uga sheekay horta sheekada maanta waxay ugu ahayd sheeko mucjisa laakiin marka si loo eego waxa weeyaan waxa ku tusaysaa nuxurka aad baan uga murugooday maaragtay in dalkeenu dawladnimo lahayn oo ruuxda ay leedahay ruuxdeenuba ay aad oo de sida caruurta inta la qasho ilmo 12 sanadood inta la soo korinayay qof intuu guriga ku dhex bireeyo uu digsi iskaga ridayo kajada taala qiimaha nolosheenu halkaas u ka yaala inaga wadankeena malaayiin jeer waan soo taagnaa askari 1,000 shilin ku toogtay qof baadan ma inaan yar dhagaha samacada ugu jiraan gaarigiisa ay dhaafeen oo arkay nin ku toogtay marka horta dawladnimadu waa deeq ilaahay uu siiyay cid doono ya inta Soomaalidu iyagu dad dhintay tirsanayeen adduunku dawladuhu samaystay wallahi waan ku shuucay dawladnimadooda laakiin waxay ku taalahay wadankayga ma hayo xoog baan idin salaamayaa aad baan idin jeclahay sheekaasan rimaanta inaan idin la wadaago waxaan ku soo qoray meeshayda markii sheekadii ugu dhacday laakiin waxaa marka deena laga sheekeeyay sidii wuxuu dhaceen loo sheegay maaragtay ayay kasii wacan tahay aad baan idin salaamayaa subscribe gareeya channelka soo dhawaada